loolan cusub ayaa soo baxay oo u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaasoo ku aadan doorashada reer waqooyiga. dagaalkan cusub waxaa ku jira laacibiin kale oo siyaabo kala duwan ugu lug leh. kooshin cabdi xaashi oo ah wiil oo dhalay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi ayaa noqday dalaalka ugu weyn ee Fahad iyo Farmaajo u dhaxmaraan doorashada reer waqooyiga. kooshin waxa uu rabaa in nin magaciisa lagu soo koobay Mukhtaar oo hadda ah madaxa maaliyadda ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka sidoo kalena ah gacanta midig ee Fahad Yaasin iyo rag kale oo badan in la dhaxmarsiyo doorashada reer waqooyiga. waxaa kaloo ciyaarta ku soo biiray boqor buur madow oo wakiil ka ah xasan cawad oo madax ka ah shirkad xawaaladeed oo koonfurta Soomaaliya ku taala iyo bartamaha dalka laakiin milkiyadeeda laga leeyahay gobollada waqooyi ee Soomaaliya. xasan cawad wuxuu gacan saar siyaasadeed la leeyahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali khayre oo marna seedigii yahay. wuxuu sidoo kale u ballan qaaday inuu ka dhigi doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya haddii uu ku guulaysto xilka madaxweynaha dalka. ganacsade xasan cawad waxa uu doonayaa in meesha laga saaro xildhibaan Ismaaciil Sheekh Bashiir oo ka tirsan xisbiga hogaamiye madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee himilo qaran kana soo jeeda beesha Maxamed Abubakar. waxaana la rabaa in lagu bedelo nin ka soo jeeda jufada xasan cawad oo u dhashay beesha Sanbuur. waxay dhammaan dukumiintiyada doorashooyinkii dalka ilaa carta ay caddeynayaan in beesha Sanbuur oo ka soo jeeda ganacsade xasan cawad aysan kursi xildhibaannimo ku lahayn golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. sababta oo ah waxay ku soo dhacaan isaaq kamana tirsana habar jeclo oo kuraasta u kala qaadata Muuse Abubakar iyo Maxamed Abubakar. laakiin siyaasiyiinta reer waqooyi waxa ay leeyihiin waxaa la rabaa in muruqa ganacsada xasan cawad isbeddel loogu sameeyo awood qaybsiga beelaha ee gobollada waqooyi. waxaa kaloo dagaalka qayb ka ah Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo difaacaya adeerkiis wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyli islamarkaana raba in doorashada laga reebo Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan xisbiga hogaamiye madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee UPD. dagaal ujeedo iyo danaysi badan ayaa ku furan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble. madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibkiis Fahad Yaasin laba ujeedo ayaa la sheegay in dagaalkan ay ka leeyihiin kuwaasi oo ah in dad ay wataan siyaabo kala duwan ugu soo saaraan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee kuraastoodu taalla magaalada Muqdisho kana soo jeeda gobollada waqooyi iyo inay sumcadda ka dilaan ra'iisul wasaare Rooble doorashadana ee buuq gasho.